halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada magaalooyinka qaar Facebook iyo barteena internetka ee bbcsomali.com kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan waa subax khamiis 12 bisha November sanada 2020 arimahan barnaamijka saaka idinku heynana waxa kamid ah dowlad goboleedka Tigray ee wadanka Itoobiya oo soo saartay dekreet ay dadka gobolkaas oo dhan ku abaabulayso si ay isaga difaacaan waxa ugu tilmaantay duulaanka aan geedka lagu soo gabanay kaga imanaya dowladda federaalka ee dalkaas kumanaan qofna colaadaas ay ka barakaceen hadda inta la sheego xaqiijiyo ilaa 7,000 qof ayaa gaaray Suudaan laakiin waxa la diyaarinayaa ilaa iyo 200,000 qof inay qaxi doonaan Suudaan bisma walaal wadamada kala dariska sida Eritrea iyo Djibouti ayagana heegan baaligeli qaramada midoobe oo sheegtay in horumar laga gaaray wadahadaladii nabadda ee Liibiya xogayaha gobolka Georgia ee wadanka Mareykanka waxa uu sheegay in aanay jirin wax astaan ah oo muujinaysa inay jirtay wax isdawmarin baahsan oo lagu arkay dib u tirinta codadka doorashada madaxtinimada gobolkaasi ka dhacday toddobaadkii tagay Trump waxa uu weli ku adkeysanayaa in aan laga adkaan hadaba maxaa u furan waxaan uun filayaa talaabada ugu weyn ee uu qaadi karaa inay tahay inuu maxkamadda sare case u geeyo maxkamadda sare markaa haddii ay xukunto oo xataa iyadoon la hubin weli maba jira xataa case macno leh oo la horgeyn karaa ma jiro ayay u badinayaan dadka ee aqoonta sharciga u lihi iyo cudurka COVID-19 oo si weyn ugu soo labkaclay qaybo kamid ah caalamka Muqdishona xaalado cusub ayaa laga soo sheegaya qodobadaasi oo kuwa kale aad ku maqli doontaan barnaamijkan uu soo saaray Xasan Cali Geelaani oo Aftaax Ibraahim Cagaarna in la socodsiinaya balse marka hore warka caalamka ku soo dhawaada iyo Axmed Badar maasanid Cagaare maamulka gobolka Tigray ee dalka Itoobiya ayaa waxay ugu baaqeen shacabka gobolkaasi inay is abaabulaan si ay uga hortagaan waxay ugu yeereen gardarrada aan geedka loogu soo gaban ee dawladda dhexe kaga imanaysa boqolaal dagaalyahano ayaa lagu dilay muddo toddobaad ah oo socday dagaalka u dhaxeeya ciidamada federaalka iyo kuwa gobolka Tigray kumanaan qof ayaa ka qaxay gobolkaasi isla markaana gaaray dalka dariska laha Itoobiya ee Suudaan boqorka dalka Sacuudiga ayaa mar kale cambaarayay dalka ay sida weyn ugu xifaaltamaan gobolka bariga dhexe ee Iiraan boqor Salmaan ayaa ugu baaqay beesha caalamka in ay tallaabo adag ka qaadaan Tehran oo sida hadalka u dhigay faragelin ku haysa dalal kale isla markaana horumarinaysa hubka nuclear-ka dalka Britain ayaa noqday dalkii ugu horeeyay qaaradda Yurub oo tirada dadka u dhintay fayraska corona ay gaartay 50,000 oo qof guud ahaan caalamka dhanka tirada dhimashada waxa Britain ka horeeya oo kaliya dalalka Mareykanka Brazil Hindiya iyo Mexico dhanka kale Talyaaniga waxa sar u sii kacaysa tirada dhimashada maalinlaha waxaana 24 saac la soo dhaafay dalkaasi ku dhintay 623 qof asiyaha xilka ergeyga qaramada midoobe u qaabilsan dalka Liibiya ayaa ku dhawaaqday in guulo laga gaaray wadahadalada lagu go'aaminayo mustaqbalka siyaasadda dalkaasi ee u dhaxeeya dhinacyada iska soo horjeeda Stephen Williams ayaa sheegtay in heshiis hordhac laga gaaray tubta lagu galay doorashada 18 bilood ee soo socota gudahooda dhowr wareeg oo wadahadalada ayaa horey u guuldaraystay ugu dambeyn xogayaha gobolka Georgia ayaa sheegay inaysan jirin calaamado muujinaya in wax isdabamarin khiyaano lagu sameeyay tiranta codadkii laga dhiibtay gobolka doorashadii madaxweynenimada ee dalkaasi ka dhacday toddobaadkii soo dhaafnay waxa uu intaa ku daray in ay markaasi uu amray in si buuxda dib lagu tiriyo codadka kadib markii codadka si weyn la isugu dhawaaday warkii dunida ayaa intaas naga dhanaan dibadii ku celiyay Cagayar iyo barnaamijka subaxnimo Axmed waad mahadsan tahay dhageystayaal u diyaargarooba qaybaha kale barnaamijka aynu ku bilownaa sida aad warkaba ku maqlayseen dowlad goboleedka Tigray ee wadanka Itoobiya ayaa waxa ay soo saartay dekreet ay dadka gobolkaas oo dhan ku abaabulayso telefishinka gobolkaas ayaa sheegay in mas'uuliyiinta ay bulshada ku amreen in ay iska difaacaan waxay ugu yeereen duulaanka aan geedka lagu soo gabanay wadada dowladda federaalka boqolaal qof oo dhinacyada dagaalamaya ayaa lagu soo waramayaa inay dhinteen muddada toddobaadka ee dagaalku u dhaxeeyay ciidamada gobolkaasi iyo kuwa federaalka isagoo ka hadlayay shir jirayd ayuu Stephen Dujarric afayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobe Antonio Guterres waxa uu sheegay in xaaladda gudaha Tigray ay tahay mid aad looga walaaco
We are told that communications continue to be disrupted. waxaa noola sheegay in isgaarsiinta ilaa hadda ay go'an tahay. waxaa sidoo kale wararku ay sheegayaan in gabaabsi dhanka korontada uu jiro iyo gabaabsi dhanka cunooyinka asaasiga sida burka iyo sidoo kale waxaa la sheegayaa in shidaal yari ay jirto. bangiyada ayaa weli xiran waxaana gabaabsiya lacagaha caddaanka. xiridda bangiyada waxa ay curyaamiyeen howlaha bini'aadanimada taasi oo ay ka mid tahay lacago gargaar oo la siin jiray ilaa iyo 1 milyan oo qof loona sii marin jiray bangiyada, including the traditional humanitarian cash transfers to 1 million people. dhanka kale Juliet Silverson oo ka tirsan xafiiska Ethiopia ay ku leedahay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ayaa waxa ay sheegaysaa in kumanaan qof ay ka qaxayaan gobolka Tigray hase yeeshee gelitaanka aaggaas ay adag tahay oo uu curyaaminayo in wax gargaar halkaas la gaarsiiyo. There are no flights and a no-fly zone again since the 4th of November. ma jiraan duulimaadyo tegaya gobolkaasi waxaana gobolka uu ahaa tan iyo 4tii bishii November aag ka caagan duulimaadyada. taasi waxa ay ka dhigan tahay inuusan jirin dhaqdhaqaaqa dadka iyo sidoo kale in halka aan la geyn karin wax alaab ah. sidaa awgeed si degdeg looga falceliyo dadkaasi tirada badan ee halkaasi ku barakacaya waxaan u baahannahay in shaqaalaha iyagu ay gaari karaan dadka tabaalaysan isla markaana gargaarka bini'aadanimo ee muhiimka ah iyo waxyaabaha kale ee xaaladda degdeg ah looga jawaabo ay tahay in si weyn halkaasi loo gaarsiiyo arrintaasi oo aysan haatan noo suurtagelin inaan samayno. Something we're not currently able to do. dhinacoodana saraakiisha waddanka Suudaan ayaa sheegaya in ugu yaraan 11,000 oo qof oo Ethiopian ay dalkaasi gaareen kuwaas oo isaga soo cararay dagaalka halka kumanaan kalena la filayay in ay dalkaasi galaan. Juliet Stevenson ayaa sheegtay in xaalku uusan wanaagsanayn dhaqaalaha lahayana uu aad u yar yahay. Before this conflict even started, ka hor inta aysan xitaa colaadani bilaaban waxaa gobolkaasi ku noolaa qiyaastii 1 milyan oo qof oo intooda badan ku tiirsanaa gargaarka bini'aadanimo. dadkaasi waxaa ka mid ah 100,000 oo qof oo qaxooti ah. dabcan way iska caddahay in tiradaasi ay sara kici doonto gaar ahaanna haddii colaaddu ay noqoto mid aan dhammaad lahayn ilaa iyo inta ay adag tahay in la gaaro dadkaasi ku kala nool goobaha kala gedisan. waxaan rajaynaynaa oo kaliya in arrintani xal degdeg ah loo heli doono. so we hope for a quick resolution. waata haddaba si aan xaaladda bini'aadanimo ee colaadda ka taagan gobolka Tigray wax badan uga iftiimino ayaan khadka taleefanka waxaan kula xiriirnay Ethiopia weeyaane Mukhtaar Ismaaciil Isxaaq la taliyay hore madaxweynaha dowladda Soomaalida waddanka Ethiopia Mustafa Maxamed Umar oo arrimaha bini'aadanimada kala talin jiray. walaal horta meesha dagaal adag baa ka dhacay ilaa iyo 200,000 oo qaxooti ayaa la filayaa inay ka qaxaan deegaamada Tigrayga iyo Amxaarada. hase ahaatee hadda inta la sheego la xaqiijiyay ilaa 7,000 qaxooti ayaa gaaray Suudaan laakiin waxaa la soo diyaarinayaa ilaa iyo 200,000 qaxooti inay qaxi doonaan Suudaan bisuma walaal wadamada kala dariska sida Eritrea iyo Djibouti ayagana heegan baa la geliyay. hay'adaha gargaarka ka shaqeeya kuwa qaramada midoobay kuwa kalaba waxay ka digayaan in halkaas dhibaato bini'aadanimo ay ka dhalan karto. marka maxaa midda keenay in haatan hay'aduhu ay sheegaan? taa waxa keeni karaysa oo iska dareemaysa oo dagaalkan waa dagaal yar degdeg lagu galay ayuu ahaa. marka diyaar garow badan ma jira wixii marka waa wax ku qabati weeyaan oo si saadanli ayuu u dhacayaa. marka iyadoon diyaar garow badan la sameeynin haddii qaxooti inta leeg ay meesha ku soo qaxaan humanitarian disaster baa meesha ka dhici karta. Mukhtaar waxaad sheegtay in dalalkan Eritrea iyo Djibouti ay laftigooda diyaar garoobeen Suudaan haatan ay qaabishay ilaa 7,000 oo qaxooti ah. marka dalalkan dadkaas ay u qaxayaan ma leeyihiin awood ay kumanaan kun oo qof ku qaabili karaan? wallahi walaal uma malaynayo inay leeyihiin capacity inta la eeg waddanka iska dareemaysa dhaqaale xumo badan baa jira oo COVID-19 kan la socday oo dhammaan dhaqaalihii wadamada way burbureen. marka uma malaynayo inay capacity inta la eeg ay wadamada leeyihiin. hase ahaatee waqtiga qaar haduunan jirin wax kale oo dadka ay sameeyaan oo dawlad lagu qasbanaan kara maaragtay wix alaal wixii la sameyn kara in la sameeyo oo dadka loo gurmudo. marka dadka qaxaya ma Suudaan iyo Eritrea iyo Djibouti ay ku wajahan yihiin mise gudaha Ethiopia ay ku qaxayaan? dadka qaxaya wallahi meel alaal meeshii gaari karaan bay ku qaxayaan. kuwa gaari kara Suudaan bay ku qaxayaan. wadamada kale oo Djibouti Eritrea wixii gaari kara halka bay ku qaxayaan. kuwa maaragtay waddanka gudihiisa ku soo qaxi kara sida Oromia iyo maaragtay xagga Addis Ababa qof alaal qof walba meeshii gaari kara ayuu ku qaxaya. dadka hadda malaha maaragtay choice
waxa weeyaan qof walba nafsadiisa iyo ciyaalkiisa inuu badbaadin buu la cararaya meel alaala meeshii gaari karaan bay gaaraya ilaa 100,000 qof malaayiin qof baa leeyahay gobolkaas bay ku nool yihiin warar badanna lagama hayo marka maadaama adiga aad ka mid tahay howlwadeennada gargaarka maxaan warar ka haynaa dadka gudaha weli ku sugan oo lagu duldirirayo walaal meesha saad maqasho weeyaan telefoonadii iyo internetyadii dhammaan way goon yihiin xaaladda ay ku sugan yihiin lama garanayo dadka waa iska yara dhibaataysnaayeen marka horeba sida wararka la sheegayo ilaa iyo 600,000 ayaa cuntooyinkan gargaarka food assistance ku noolaa haddana haddii dagaalkan maaragtay uu kusii biiray xaaladda beeniya waa iska garan karaysa waa lama garanayo wallaahi waa humanitarian disaster adag baa meesha ka soo socoto mukhtaar waxaan ognahay in gobolka Tigray ay ku yaalaan xeryo badan oo qaxooti ah oo kumanaan kun oo qof ay ku nool yihiin marka dadkaas haatan xaalkoodu waa sidee wallaahi dadka xaalkooda ilaa iyo waxa lagu qiyaasayaa 96,000 oo Eritrean ah ayaa halkaa ku sugnaa xaaladday ku sugan lama garanayo marna waxaan arkay maaragtay Filippo Grandi waa ninka UNHCR commissioner haysto weeyaan oo arrinka ka hadlaya ayaan arkay xaaladooda lama garanayo waxay ku sugan yihiin marka walaal dhibaatooyinka faraha badan baa meesha kaga jira walaac badan buu ka muujinayay Filippo Grandi arrimaha maaragtay qaxootiyadan soo qaxaya iyo kuwa meesha ku sugnay xaaladooda walaac fara badan baa laga muujinaya walaal dagaalkan haddii uu sii socdo dadka qaxayana ay sii bataan dadkaas si u maqan wallahi dadkani waxa weeyaan international community-ga baa u maqan dadku la isku haleynayaan ma jirto iyo wadamada diriska ah waxa wixii loo qaban kara in loo qabto marka inta badan crisis-ka markay dhacayaan waa la sii saadaaliyaa oo diyaar garow badan baa ayaa la sameeyaa laakiin hadda waxaad moodaa walaal wixii si yar maaragtay saadilna inay ku dhaceen diyaar garow badan aanan jirin international community ayna si toos hataa weli dagaalkan dadka ay weli reeriye la tahay inuu loo soo jeesanin wada hadaladii maaragtay dhammaan loogu baaqay dadka dagaalamahaya inuu ka yara dhaga adkaystay ra-iisul wasaaraha Ethiopia ayaa jirta marka walaal haddii aanan si degdeg ah international community-ga aynan usoo dhexgelin labadan qolo dagaalama hayso meesha disaster aad u weyn ayaa ka soo socda xagga security-ga iyo maaragtay xagga ibnaadinimada intaba walaal waxaan la saadarin karin badan ayaa ka soo socda kaasi wuxuu ahaa Mukhtaar Ismaaciil Isxaaq la taliyay hore ee madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida waddanka Itoobiya arrimaha bini'aadanimada oo khadka taleefanka ugu warramay BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba sida aad warkaba ku maqlayseen madasha wadaxaajoodka siyaasadda ee waddanka Liibiya ayaa waxa uu heshiis hordhaca ka gaareen tubtii dalkaas ay doorasho uga dhici lahayd arrintan ayaa waxa ay ku dhawaaqay baa leeyahay siyaasadaha xafiiska ergeyga qaramada midoobay oo qaabilsan waddanka Liibiya Stefane Williams taas oo dusha kala socotay wadahadallada nabadda ee muddada toddobaadka ku dhow halkaasi ka soconayay waa Tunisia wadahadallada nabadda ayaa bilowday Isniintii kadib markii heshiis xabad joojin ay bishii la soo dhaafay militariga iska soo horjeeda ku gaareen magaalada Geneva haddaba wariyaha BBC-da uga soo warantay waqooyiga Afrika Rana Jawad ayaa magaalada Tunis warbixintan ka soo dirtay waa kan Xasan Cali Geelo soo jeedinaya qaramada midoobay ayaa in muddo ahba isku dayaysay inay muujiso horumarka laga gaaray wadaxaajoodyada siyaasadeed ee u dhaxeeya dhinacyada kala gedisan ee dalkaasi Liibiya ee ku shiraya Tunis kuwa oo ay tahay inay go'aan ka gaaraan mustaqbalka siyaasadeed ee dalka Liibiya hawshooda ugu weyn ayaa waxa ay tahay inay cadeeyaan marka ay doorasho ka dhacayso dalkaasi Liibiya iyo sidoo kale in ay yegleelaan oo ay dhidibada u taagaan maamulku meel gaar ah kaasi oo maamuli doono geedi socodka doorashada siyaha xilka ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan dalka Liibiya Stefane Williams oo shir jiraa'id ku qabatay halkan kadib gabagabada maalintii saddexaad ee shirka wada hadallada dalka Liibiya ayaa waxa ay sheegtay in dhinacyada shirkaasi ka qayb qaadanayay ay ku heshiiyeen wadiiqo loo marayo doorashooyinka baarlamaanka iyo kuwa madaxtinimada dalkaasi kuwa oo ay tahay in laga qabto dalka Liibiya 18 bilood ee soo socda gudahood inkastoo arrintani ay ku tilmaantay tallaabo horey loo qaaday haddana weli lagama hadlin arrinta ugu culus ee ugu dhibka badan oo ah in la magacaabo dawlad ku meel gaar ah iyo madaxweyne mas'uulkan ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegtay in kulanka maanta looga hadli doono kartida iyo waxyaabaha looga baahan yahay maamulka ku meel gaarka ay tahay in dalkaasi laga yagleelo xasan cali geelaad ayuu mahadsan yahay warbixinta wariyaha BBC-da Rana Jawad ayuu nala socodsiinayay markan si xogayaha gobolka Georgia ee waddanka Mareykanka ayaa sheegay inaanay jirin wax astaan ah oo muujinaysa inay jirtay wax isdabamarin baahsan oo lagu arkay dib u tirinta codadka doorashada madaxtinimada ee toddobaadkii hore gobolkaasi ka dhacday ee waddankaasi Mareykanka hadalkan ayaa yimid xilli gobolkaas uu si buuxda dib loogu tirinayo codadkii doorashadaasi dhanka kale madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu wali ku adkeysanayaa in aan lagu guuleysan doorashada isagoo dacwad ka
furay dhowr gobol oo dalkaasi ku yaal hase yeeshee qaar ka mid ah qareenada Mareykanka ayaa waxay ku doodayaan in fursado badan aanay Trump u furnayn. Umuurtaas waxaa warbixintan ku eegaya Siyaad Siciid Saalax. madaxweyne Trump iyo maamulkiisa ayaa ilaa hadda diidan inay saxiixaan waraaqo muhiim ah oo looga baahan yahay in si rasmi ah loogu bilaabo howlaha kala guurka. madaxweynaha la doortay Joe Biden wuxuu ku socdaa jidkiisii si uu u dejiyo xasiloonida iyadoo ay sii socdaan fawdada sii xumaanaysa ee ka imanaysa Trump iyo jamhuuriyiinta sarsare oo ay weli ku diidan yihiin inay qirtaan guuldaradii doorashada. inkasta oo Trump sii ahaan doono madaxweynaha dalka ilaa 20 Janaayo 2021 wixii maalinta ka dambeeya haddii Trump uusan tanaasulin maxaa dhici doona. waxa aan su'aasha weydiiyay qareen Cabdiwaaxid Qalinle oo Minnesota degan. waxaan filayaa haddii uu aad isugu dhajiyo ama talaabada ugu weyn uu qaadi karaa inay tahay inuu maxkamadda sare case u geeyo. maxkamadda sare markaa haddii ay xukunto oo xataa iyadoon la hubin weli maba jira xataa case macno leh oo la horgeyn karaa ma jiro ayay u badinayaan dadka aqoonta sharciga u lihi. laakiin xataa haddii ay dhacdo in la horgeeyo maxkamadda sare markaa go'aan ay ka gaadho gebi ahaan waxaad moodaa inay rajadiisu markaa bisha Janaayo 20keeda ay kaga ekaanayso. maxkamadaha dalka iyo siyaasiyiinta dalka iyo shacabkuba runtii ma jecla isqabqabsi wixii ka dambeeya January 20keeda. marka waxaan rajaynayaa riwaayad kasta oo madaxweyne Trump dhigayo inay soo gabagaboobi doonto January 20keeda intaa kadibna sharci ahaan aanu isu sii dhajin karin talada dalka. waxaan kaloo qareenka weydiiyay habka kala guurka labada maamul cidda mas'uulka ka ah dalkan iyo nidaamka loo maro. madaxweyne Trump isaga ayaa mas'uul ka ah hay'adda fulinta ee dawladda Mareykanka xilliga la kala guuray labada madaxweyne doorashada kadib hay'adda ku shuqul kale inay fududeyso kala guurkaasi waxay hoos timaadaa dabcan hay'adda fulinta oo madaxweynuhu uu mas'uul ka yahay. marka waxay ka amar qaataan sida caadiga ah madaxweynaha inkasta oo sarkaal kasta oo dawladda ka mid ah uu ku dhaaranayo inuu sharciga iyo dastuurka u hoggaansamayo haddana siyaasad ahaan madaxweynaha ayuu hoos tagaa. marka intii muddaa kulley ilaa madaxweynuhu uu isagu amarkaa bixiyo gabadha iyadu mas'uulka ka arrintaas inay ku adkaysan karto in aanu weli madaxweynihii arrintii ogolaanin. waxa kale oo runtii wax weyn bedeli doonta markii natiijooyinka si rasmi loogu dhawaaqo ee goboladu ay ku dhawaaqaan cidda guulaysatay si rasmi ah oo certificationka la sameeyo. taa lafteedu waxbay ka bedeli doontaa. waxaan aaminsanahay in markaas ay culays aad iyo u fuuli doono gabadha mas'uulka ka ah xafiiska kala guurka warqadda muhiimka ah ee kala guurkana ay u saxiixi doonto taasoo markaa u ogolaanaysa madaxweynaha cusub ee la doortay. dadweynaha Mareykanka ayaa aad ugu kala aragti duwan arrinta dhex taalla Trump iyo Biden. Aamine Jaamac Deeble waxa ay qabtaa in Trump uu ceeb u soo jiidayo nidaamka dimuqraadiga ee dalkan. anigu waxaan u arkaa in uu Trump isku dhajiyo maaragtay xukunka. waxaan u arkaa inay tahay nin daad qaaday xumbo ciskay oo kaleeto mana ahayn inuu saa u ceebeeyo oo dhibaatadaasi u geysto Mareykanka oo laga soo doonto dimuqraadiyadda oo ummadda markay meel kasta adduunka wax ka dhacaan la isku qabsado loo imaan jiray ama ay u tagi jireen inay wax maslaxeeyaan. maanta inay noqoto meeshii la isku hirdinayay aad baa uga xumahay. Cabdisalaan Ustaad oo aad u taageera siyaasadda jamhuuriga ayaa isna qaba in Trump xil wareejinta uu ogolaado arrintanna ay keeni karto kala qaybsanaan ka dhex dhalata bulshada Mareykanka. wax ma aha dastuuriyana sharci u sheegay laakiin wax moral weeyo fiican dadka inay isku yimaadaan inay noqoto dadka midayso laakiin wax waajiba dadka fiican lahayd inuu madaxweynuhu sheego oo ka hadlo si dadku midoobaan. anigoo dadkii ugu horeeyay oo codeeyay haddana oo codeeyay taageersanaa laakiin wax qurux badnaan lahayd inuu soo dhaweeyo waayo doorashada isku dhamaatay dadka inuu mideeyo. codkaasi wuxuu u dambeeyay warbixintii Siyaad Siciid Saalax oo wadanka Mareykanka inooga soo diray.
saacaduna waa 7:09 iyo 30 ilbiriqsi oo go waqtiga bariga Afrika. wararka ciyaaraha ayaa noo soo socda, balse markan sidaad warkaba ku maqlayseen wadanka Britain ayaa noqday dalkii ugu horeeyay ee reer Yuruba ee fayraska corona uu ka galaafto nolosha in ka badan 50,000 oo qof. Mareykankana waxaa la diiwaan geliyay in dadkii ugu badnaa isbitaalada loo dhigay cudurkaasi COVID-19. tirada ayaa muujinaysa in 61,000 oo sariiro caafimaad dalkaas looga baahan yahay xilli dhakhaatiirtu ay ka digayaan in isbitaaladu ay dhawaan buux dhaafi doonaan. Soomaaliyana mas'uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay in magaalada Muqdisho xaalado badan oo cudurkaasi lagu arkay. arrintaas oo faafaynta aan weydiinay Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin, agaasimaha isbitaal Martiin oo u warramay waryahayaga Fartuun Ismaaciil Axmed. waxaa si joogto ah u socda mar walba cudur goobida ee xanuunka COVID-19. waxaa la sameeyaa si joogto ah baaritaanada dadweynaha loo sameynayo iyo xarumaha caafimaadka ee dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay oo soo tabiya khataraha iyo calaamadaha xanuunka. dabayaaqadii July ayaa noogu dambeysay kaysas oo aad ah oo la arko guud ahaan gobolada dalka, laakiin 25 Oktoobar iyo 31 Oktoobar oo la baaray 3,912 qofood oo xanuunka isaga shakiyay, waxaa laga helay 146 waxaana u geeriyootay 3 qofood. marka waxayna kalisay walaaca inuu imaan karo xanuunka hirka labaad. haddana daatadeena hadda isbuuca ka dhignay November 1 iyo 7 inta u dhaxaysay 3,605 qof oo la baaray, waxaa laga helay 72 qofood. dhimasho ma jirno isbuucan hadda bisha November ay ku jirno, laakiin waxaan dareemaynaa kororka xaaladaha. isbitaalka Martiini oo ah isbitaalka hadda ugu weyn isolation ka ah, ilaa shalay waxaa u jiifay xanuunka 7 qofood oo labada isbuuc ay ugu dambeysay gobolada qaar laga keenay intooda badan 4 qofood oo kamid ah laga soo ifaagood jiray markii xanuunka lagu arkay oo xaalad ICU ah iyo critical ah galay. sidaasaa keentay inaan bulshada la wadaagno baaniga hadda jira. maxaad u malaynaysaa in ay sabab